بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي من المدوكات جوتان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء waxaan naftayda ugu hambalyeynaya muslimiinta adduunka meel walba joogaan ugu hambalyeynaya inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala una gaarsiiyey bishii ramadaan. ilaahayna aan warsanayno inuu noo dhammaystiro daacadiisa wanaagiisa nagu daro addoomanka ilaahay naarta laga xoreynayo. ikhwaani, kelima aad u yar waay. waxaan rabaa fadliga ramadaanka uu ku soo arooray, wanaagga uu leeyahay, khayrka uu leeyahay, wax la soo kabi kari maha. ahlu cilmigu, dalabada, meel walba waa laga sheegaa. laakiin waxaan rabaa naftayda iyo walaalaha inaan xasuusiyo hal xadiid oo ka mid a axaadiistii laga wariyey nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadliga iyo wanaagga bisha ramadaan ay leedahay. xadiidkan waxaa soo saaray imaam axmed fi kitaabi lmusnad, waxaa kaloo wariyey imaam ibnu maaja, waxaa wariyey ibnu xibbaan fi saxiixihi, waxaa kaloo wariyey imaam bayhaqi. marka la isu geeyo ahlucilmu waxay yihahdeen darajadiisa xasan bay noqonaysaa. dalxa ibnu cubaydillaahi oo ka mid a 10kii jannada loogu bishaareeyey ayaa waxa uu leeyahay radia allahu canhu ardaa ana rajulayni qadima calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam. laba nin ayaa nabiga alai salatu wasalaam u yimaadeen, wa kaana islaamuhumaa jamiican, hal maalin mar bay wada islaameen. wa kaana axaduhumaa ashaddu ijtihaadan min saaxibihi. labada nin markaa isa bardhigto midbaa aad u dadaal badnaa oo daacadii iyo wanaagii iyo khayrkii kulli ahlu khayr waay, laakiin midbaa aad u dadaal badnaa. fagaza almujtahidu minhumaa. labadii ninkii aadka u dadaal badnaa ayaa dagaal iyo jihaad buu aaday. fastashhad, tiran baa u timid, meeshii uu ku dhintay. uma makatha alaakharu bacdahu sana. ninkii saaxiibkii ahaa ee haray, ninkii laga dadaalka badnaa, gadaashii hal sana ayuu sii noolaaday. subxaan allah. uma tuwufiya, kadibna ninkii waa dhintay. sanad kadib ninkii saaxiibkiisa ee ka dadaalka badnaa horay buu u dhintay, dagaal buu ku dhintay, laakiin gurigiisa ayuu ku dhintay. qaala dalxa wuxuu yihi fara'aytu fii maa yara naa'imu. wuxuu yihi habeen baan riyooday buu yihi, kaannii cinda baabi aljanna. waxaan ku riyooday buu yihi in jannada albaabkeeda aan taaganahay. id ana bihimaa, labadii nina waaba ila taagan yihin, albaabka jannada ila taagan yihiin. waqad kharaja khaarijun min aljannati, jannada ayaa ka soo baxay, balag min almalaa'ika waay, malaa'ika ka mid a. faadina liladii tuwafiya alaakhara minhumaa. labadii nin kii shahiiday mooye kii kaleeto oo ka dambeeyey oo weliba laga daaca badnaa ayaa loo yeeray. kiibaa jannada ku hormaray. subxaan allah. kadib uma kharaja, haddana malagii dadka u yeerayey haddana mar labaadu soo noqday. faadina liladii istashhad, kii dagaalka ku dhintay jihaad ku dhintay baa loo yeeray, waxaa lihi kaalay. uma rajaca ilaya, haddana way baxeen, way ii socdeen wada socdaa. faqaala lii wuxuu igu yidhi irjic, adiga noqo, fa inahu lam ya'ni laka bacd, adiga waqtigii aad geli lahayd weli lama gaarin. bacdalxa 10 muslimin fi ljanna, laakiin riwaaya waa meesha tan waxaa lalahay riyo waa riyoonaya. fa asbaxa dalxatun yuxadisu bihi nnaasa. markuu waagu beriyey sayidina dalxa ibnu cubaydillaahi wuxuu bilaabay inuu dadka uga sheekeeyo xalay wixii uu ku arkay, wixii uu ku riyooday. labadii nin, kii jihaadka ku dhintay in laga hormaray oo kii caadi u dhintay maxaa lahay. facajibuu lidalika, dadkii aaday ula yaabeen, see wuxuu jiraan. fabalaga dalika rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam, warkiibaa wuxuu gaaray nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam. faqaala wuxuu yihi min ayi dalika tacjabuuna, maxaad ula yaabaysaan? iyo min ayi dalika, labadan qof keebaad maxaad la yaabaysaan oo maxaa lahay aad si arrinka uu yahay. faqaaluu yaa rasuul allahi hada kaana ashaddu ijtihaadan. waxay ninkan wuxuu nin aad daacada ugu fiican, ugu maxaa la dadaal badan. uma istashhada fi sabiili illahi, haddana waddada ilahay buu ku dhintay. wuxuu isu darsaday ijtihaad dheeraada iyo waddada ilahay oo lagu dhinto. wa dakhala hada aljannata qablahu, laakiin kii kaleeto oo laga dadaalka badnaa baa ka hormaray, jannada kaga hormaray. subxaan allah, baa kaga hormaray. markaasaa nabi alai salaatu wasalaam wuxuu yihi alaysa qad makatha hada bacdahu sana. wuxuu yihi ninkii wal saaxiibkiisiya gadaashiisa hal sano sowma noolayn. markaasay qaaluu bala, ha rasuulka ilah sanaduu ka dambeeyey.
قال وأدرك رمضان وفصامه ومركز رمضان وحلالي ومركز أوصومي مع نيكي سنة مقدم بي رمضان بقى أوصوقري وأنا أوصومي قالوا حين بلا يا نعم يا رسول الله كلا يوم ساسع عظيم قال وصلى كذا وكذا سجدة في السنة انت جال انتو الدكري او سجودي سنة كان سو مجرتون مثلا وحوري ها وحيدين ها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وحوري فلما بينهما أبعد فما بينهما أبعد مما بين السماء وحو لماذا أن وحي سجران بوري انت سمد لك سجران أي درجة سجرتا سبحان الله أي درجة سجرتا معناه وحويا فضلك صيامك يصومك وليه مرحبا والله إلا لو ذاقو إلهي نقل قدام الصالحين وجدك إلهي كوهنونيو وحين كذا تياكي دعاونا أحسن إلهي خير نوافرجيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.